78 arday ayaa maanta heshay shahaadada heerka labaad ee jaamacadda Simad kadib markii ay barteen kulliyado kala duwan oo ay bixiso jaamacadda Open University Malaysia oo bahwadaag waxbarasho ay yihiin jaamacadda Simad. xafladda ardadan shahaadada lagu guddoonsiinaya ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho maadaama ay dhameeyeen waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda iyaga oo ku sugan dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ah. gudoomiyaha jaamacadda Simad Daahir Xasan Carab ayaa u mahadceliyay ardadii 78 gaaraysay ee helay shahaadada heerka labaad ee jaamacadda isaga oo sidoo kale sheegay inay keenayaan kulliyada lagu qaadanayo master degree oo jaamacadda Simad u gaar ah. ardayda ka qalin jebisay shahaadada labaad ee jaamacadda master loo yaqaan master degree si gaar ah inaan ugu hambaleeyo ardayda dhamaysatay master of project management koorsadaas oo runtii leh taariikh gaar ah. taariikhda ay huwan tahay waxaa ka mid ah waa markii ugu horeysay ee dalka Soomaaliya koorsadaas lagu dhigtay laguna qalin jebiyay. waana maado aad iyo aad muhiim u ah horumarka iyo dibadhiska oo dalkan ugu baahan yahay xilligan hadda aan joogno. marka ardaydaas aad iyo aad ugu hambaleynayna waxaan rajaynaynaa inay ka soo dhalaali doonaan expectationka ama diilada ama rajooyinka waaweyn ee laga leeyahay insha Allah taala. waan rajaynaynaa waxaan rabnaa in aan ugu bishaareyno ummadda Soomaaliyeed in jaamacadda Simad ay si rasmi ah bisha May ay u bilaabi doonto master ayada ay leedahay oo takhasusaad rasmi ah oo ka mid tahay master of accounting, master of finance, master of banking and finance ay bilaabi doonto insha Allah taala. taas oo aan rajaynayna insha Allah taala in xirfad iyo takhasus run ah oo ay dadku u baahan yihiin in la siiyo. ardada qaar ee ka qalin jebisay jaamacadda gacantana ku dhigay shahaadada master degree-ga ayaa waxay dhankooda ay muujiyeen dareenkooda iyaga oo sidoo kale ka hadlay sida ay wax ugu barteen dalka Soomaaliya iyaga oo ku sugan. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacaygu saddexan waa Faadime Axmed Caynte. aad baan dareenkayga ma la soo koobi karo waayo waxaan maanta u joogaa inaan qaato shahaadadeedii master degree-ga anigoo jooga waddankaygii ka qaadanaya Malaysia Open University Malaysia. aad baan u faraxsanahay runtii aad aan u faraxsanahay inaan maanta shahaadada labaad waxbarashada master degree aan ka qaato jaamacadda Open University Malaysia oo ay partnership la tahay jaamacadda Simad. waxaan dareemaa farxad aad weyn maxaa yeelay anoo waddankayga jooga carruurtaydii saaxiibaday shaqadeydii waxaan helay inaan qaato shahaadada masterka. bismillaah magacaygu waa Sucaade Ibrahim Cusmaan. dareenkayga maanta ma la soo koobi karo aad aan u faraxsanahay. Cabdicaziz Maxamed Cabdi. dareenkayga maanta ma la cabiri karo maadaama ay tahay maalin aad noogu weyn oo aad u farxad badan. waxaan ka qalin jebinay darajadii labaad ee master degree-ga waxaan wax badan aan ku haminaynay waana sii wadi doonaa insha Allah. inaan aad u faraxsanahay waxa waaye waxaan qaadanay darajadeeni labaad ee masterka anagoo ku qaadanay business administration waana kulli farxad aan qiyaasi karin. aad iyo aad aan u faraxsanahay. waxaa mahadle Ilaahay oo loo suurtageliyay iyo asxaabtii qaraabadii dhammaan macallimiintii jaamacadda kulli intii oo kaalin ka qaadatay aad u mahadcelinaynaa waana ku faraxsanahay boqolkiiba. jaamacadda Simad waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu waaweyn ee ku yaala dalka Soomaaliya waxaana dhigtay arday badan. Maxamed Ciise Maxamuud, Somali Cable, Muqdisho.